in badan baa isku keenay bas in caadi isku soo hor fadhiisano oo barnaamij caadi anigoo saan idin soo hor fadhiyo idin soo jeediyo laakiin maanta wixii ka dambeeyay waxaan idin ballan qaadayaa inaan joogto ka dhigi doono imisa asxaabtaada ayaa taqaanaa oo ku qalin jibiyay iyagoo da'doodu tahay ilaa 25 balse shaqo helay isla sanadka laftiisa imisa jaamacadaha kaga baxay iyagoo 20 jira balse 6 sano iyagoo shaqada dayaya maanta barnaamijkeenu waa mid aniga saameyn ugu yeeshay runtii waxaan moodaa in nolosheena qayb ka mid yahay haddii muuqaalka share garee like day ku cusubtay biggeena ama youtube-kayga follow soo dhigin muuqaalkana waxa la wadaagtaa kumanaan asxaaba arday ka gudbaysa level oo level kale u gudbaysa ama sanad dugsiyeed ka gudbaysa sanad dugsiyeed kale u gudbaysa ayaa uu dardaaran buusinayay dhamaantiin way soo wada marnay inay macallimiinteenu dardaaran in soo siiyaan haddaba macallinkani laakiin muxuu sameeyay balaan wada daawano of the journey, the start of the rest of your lives. In 2 years' time, all of you will have been finishing your A-levels. In 3 years' time, you'll be studying across the world, studying at the university of your choice. In 5 years' time, you'll have started your careers. Many of you will be in this room working for the top institutions across the globe. You will then get married. You then may buy a house. In 10 years' time, your life will be set for you. In 15 years, you'll be 30. And from then on, your path, your life will be set. Kalaaska waxaa wada fadhiya saaqidkii xariifkii businessmankii Britole waxaa fadhiya dhakhtarkii Britole ugu fiicnaa laha dalka waxaa fadhiya meesha engineerkii ugu fiicnaa waxaa fadhiya kii drop out ka ahaan lahaa dadka dhici lahaa tuuga noqon lahaa waxa meesha fadhiya macallinkii Britole institution kan uu sheegayo dhigi lahaa macnaha dadku isku mid ma aha wala kala duwan yahay waxa dib u eegtaa ardayda isla soo qaadaysan dugsiga sare qofba meel buu maanta nolosha kaga jira laskuma wada qaadi karo 50 qof oo meel wada fadhiya 100 qof oo meel wada fadhiya inay hal inuu nolosha wada maraan oo hal waqti ku wada maraan oo hal يعني استبوذ قادان صرت قال ما نرجع كرتون ما نيدعنا بيتكلم ما نرجع دونت مركا واحد قعدت تاجي جيشتي ومركا شورت فيلم كسميني أرنتن جيشتي مركا وانين كرياتورا أو يتبادل موتيفيشنال أو بودكاست وين نسوا كله حتى مالو تو جو بايدن بو ورئيسي بودكاست كقال مركا شورت فيلم كان نسيجا مركا ديا. Sorry, Mr. Headmaster. Let me tell you why that approach may fail you. I know people who graduated at 21. And didn't get a job till they were 27. I know people who graduated late at 25 and they found work immediately. I know people who never went to university but found what they love at 18. I know people who found a job straight out of college making decent money but hate what they do. I know people who took gap years and found their purpose. Children but are single. And I know people who are married but have had to wait 8 to 10 years to imisa qof ayaa iyagu aad u da'yar isguursaday balse ilaa 10 sano ay ku qaateen inay wadalaan imisa ayaa markay isguursadeen sanadkan oo kale sanadkii xigay baa carruur dhalay inkastoo awlaad rabbi bixiyo haddana laakiin waxa dareemi kartaa in qof kasta waqtigiisa uu ku socdo. I know people in relationships who love someone else. I know people who love each other but aren't together. So my point is, everything in life happens according to our time, our clock. qodobka ugu muhiimsan barnaamijka dhan aan u duubaynaa waa intan wax kasta waqti u gaar leeyihiin nolosha wax kasta qof kasta waqti gaar u leeyahay saacad gaar u leeyahay naftiisa inuu waqtigeeda ku xisaabiyo weeyaan qof kale ma aha waqtigiisa noloshaada adiga gaar ku tahay qof kale waxba iska mumkin xidna. You may look at some of your friends and think that they're ahead of you. Maybe some of them you feel are behind. But everything happens at their own pace. They have their own time and clock, and so do you. qof kasta waqti u gaar u leeyahay saacad u gaar u leeyahay adiguna sidoo kale saacad ku gaar ah iyo waqti ku gaar ah leedahay marka inaad qof kale isku dhaririso macna ku sameeynayso waana ku daalaysaa niyadjabun baad ka qaadaysaa. At age 25, Mark Cuban was a bartender in Dallas. It took till 32 for J.K. Rowling to be published for Harry Potter after being rejected by 12 publishers. Ortega launched Zara when he was 39. Jack Ma started Alibaba when he was 35.
Morgan Freeman got his big break at 52. Steve Carell only got his break after 40 years old. Virgin was started by Richard Branson at 34. Getting your degree after 25 is still an achievement. dhammaan dadkan uu tirinayaa waa kuwo guula ku gaaray iyagoo waaweyn. way jiraan dad fara badan oo guula gaaray iyagoo aad u da'yar, laakiin sidoo kale ha moodin in marka la weynaadana aan guul la gaari karin. haddii noqoto Jack Ma, haddii noqoto Freeman, haddii noqoto rag fara badan oo ganacsata ah inkastoo ay Mareykan u badan yihiin, haddana waxay jibiyeen breakskoodii, yacni waxyaabaha waalida waxay sameeyeen mar ay da'doodii aad u weynaatay. 35 jir, 45 jir, 50 jir. marka waqtigaaga yaan lagu xadidin, intaad nooshahay guul kasta waad gaari kartaa. Achievement. Not being married at 30 but still happy is beautiful. Starting a family after 35 is still possible. And buying a house after 40 is still great. Don't let anyone rush you with the timeline.